waxay u eeg tahay inaan maanta dad Soomaaliyeed oo dawlad sheeganaya oo ummadda horkacaya oo u talinaya oo jidkii siraadal mustaqiim horgelaya ma ayan jirin bay u eeg tahay maanta walaal waa ayaan daro in shirka inta la isugu yimaado lagu kala tago oo sida مثلا Axmed Madoobe uu sheegay inaan xataa ajenda la sii samaysan intii wixii laga wada hadli lahaa la sii diyaarin la sii qalabayn waxay ku tusaysaa wax dawlad u eegi inay xamar fadhiin ayay u eegtay waayo qorsha la sii dhigi lahaa waa laga sii tashan lahaa hawlaha intooda badan intaan meesha la isugu tagin ayaa laga sii shaqeeyaa marka maskaxna ma jirto maana ma jiro miyirna ma jiro iimaanna ma jiro walaal xamar dawladda fadhida toddoba maalmood dabcan waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlayo waa arrinta dawlad goboleedyada galmudug iyo sidoo kale arrinta Jubbaland taasi inta aan la guda galin qorshaha waxay in laga hadlay qorshaha doorashooyinka amniga guud ee qaranka qaybsiga kheyraadka dalka inta la gaarin laga wada hadlay dawladda federaalku ma ku muuqanaysa inaysan xal diyaar u ahayn toddoba cisho in laga wada hadlayo laba maamul oo cabasho ay soo jeedinayaan walaal waxa weeye siday dadka dawladda yaqaana ama dawladnimada yaqaana og yihiin waxa weeye marka shirarka caynkana la isugu imanayo waxa la sii lafaguraa hawlaha halkaa lagaga wada hadli doono oo intooda badanba la sii dhamaystiro intaan meesha la tegin gunaanad ayaa la isugu yimaadaa meesha marka meel 4 cisho 5 cisho inta la isugu yimaado waxyaabaha culuseed ka hadashay sida weyn ama kheyraadka sida loo qaybsanayo ama doorashada sida loo samaynayo halkaa iyagu ay leeyihiin annaka ka soo goynana ama ha noqdaan goboleedka ama tan dhexe ha noqotee waxay ku tusaysaa dad shaqo yaqaana meeshaas inayna joogin kow talabaadna waxa weeyaan dad iimaan la oo dadkooga ka naxaya dibta haysata bisha Ramadaan iyadoo la joogo waxay ku tusaysaa garaadkii madaxnimo inayna meesha oolin tasaddexaadna sida odayga timacad loo jiray ee Soomaaliga ahaa ee waagii calanka la qaatay ka nasiib ka nasaar gabaygii loo oran jiray caanka ahaa uu oranayo u leeyahay hadayna horgalaan midhama weynayna walaal wuxuu ka hadlayay wax maanta joogu ka hadlayay 50 sanadood horteed walaal marka waxa weeyaan dad aan hawl garanayn dad aan dawladnimo sida loo maamulo aan garanayn ayaa madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo wax la mid ah inoo ah qolooyinka goboleedaduna waxa weeyaan nasiib darradu waxa weeye intay leeyihiin kuwan iska celiya oo de waxaan ognahay wixii baydhabo ka dhacay wixii lagu sameeyay maxay leeyahay ninkii Robo meesha la soo boobay inta lacag iyo hub la geeyay la soo boobay iyaguna baqashada haysa waxa weeyaan hadii taas oo kale la mariyo meesha kuwa madaxtooyada fadhiya isku shuban doona marka halkii haykalkii dawladnimo ee sharafta lahaa ee horgali lahaa ummadda ee shaqada yaqaanay ee waxaan sii qaabadhigi lahaa isagoo dadkiisoo dhan la tashanaya ma jirto marka in meeshan garawa lagu soo hungoobo waxay ku tusaysaa waxa weeyaan tii Maxamed Cabdullaah Xasan Sayid Maxamed Cabdullaah Xasan Allah u naxariistay uu yiri tuuba soo kala dhexgala rag markay kala tagayaan meeshan iimaan wax qaba ma jiro weeyaan marka intay taasi jirto ha ku tashan Soomaaliyeey inay meela la cuni kara oo dadka uu ku degi kara oo maskaxeed ka soo bixi kara marka walaal waayahay professor Samatar aan dib ugu laabano gabayga aad ka dhawaajiso 50 sano ka hor dabcan haddii aan hadda dadka nala socda aan dhageysino madaxweynayaal iyo markii minister loo doortay maskaxdii waqnaydiyo dadkii meel u wada jeeday nimankii malmalay waa kuwii malaykeen nimankii malmalay waa kuwii malaykelidoode hadday maalintiina horkacaan midho ma weyneene manaxanadii baan arliga meerisna u toline marnaba yaydinaan dhicin kuwii malee ku soo goosay miyigana nimankii mindida meel walba u dhiibay kuwii muusanow iyo tola'ay nagula meeraysay nimankii mashaqaday dhigeen reer badhanu moosay suntaynagu mudeen wiilashii la ismartay gabaygan muxuu dabcan 50 sano ka hor maxaan uga cibri qaadan laanahay hadii la tariyay
waxa looga cibro qaadan lahayaa dadka Soomaaliyeed walaal waxay leeyihiin waxa weeye dad madax sheeganaya oo hadalkooga iyo ficilkoogu iswaafaqsan yahay oo waxay sheegaan uu ran ku yahay ayaa la leeyahay meesha waxay u haystaan dadku masaakiinta Soomaalida ee waddankooda dhan daadsan rag iyo dumar barre iyo carruurba in wax kolba dhinaca doona loo jeedin karo inay yihiin laakiin se ma oga tii mahmaadii Soomaaliya ahayd beentaada hore runtaada hore ayay naafaysaa marka timacad arrintaa uu ka hadlay waxa wax looga qaadan lahayaa waxa weeyaan dad madax ah oo sharaftii madaxnimo leh oo qowlkii madaxnimo leh oo qiimihii islaamnimo leh ayaa wali Soomaalilaadahay kuwa is afgaran lana waa kuwaasi ee maaha dadka Soomaaliyeed markan anigu ama Kismaayaan tago ama Garow aan tago waxay dadku ka wada hadlayaan ama Hargeysa la tago waxay dadku ka wada hadlayaan waa dan guud oo iskaga wada mid yihiin kuwii ka mid dhalin lahaa ee horkici lahaa waa dawladda kuwa timacada ka hadlayaana ee 50 sanadood ka hadlay kuwii ayaa wali jooga walaal waa marka dadweynihii cid hor gasho oo tilmaam u noqota ayaa la leeyahay xamar laga leeyahay walaal waayahay markaan dib ugu laabano shirka Garowe waa lagu soo kala tagay dhamaan dabcan xiisadana awal waa ay taagneed hadda marka dib u fiirisid marka natiijada maxay ku dhamaanaysaa isleedahay hadii mar dawladii ay dhinac isu taag noqotay maamul goboleedyada sidoo kale waxa weeyaan ilaahay baa doorta waa bil Ramadaan ilaahay baa wax noqon doonto meesha Soomaali ku dambeyn doontana Allah og laakiin se maskaxda marka laga shaqaysiyo waxay ku tusaysaa waxa weeye qolooyinka dawlad goboleedyada jooga hadday u naxaan dadka ku hoos nool ee ku baaba'ay hadday u naxaan hadday taladoodu noqoto in qaran Soomaaliyeed oo koow la dhiso oo la kala qaybsanayn qabyaalad iyo loo kala qaybsanayn hadday taladoodu noqoto inay dadka Soomaaliyeed meel la iskugu keeno oo mabda lagu hanuuniyo waxaan isleeyahay way iska celin kari lahaayeen ummadana way ka celin kari lahaayeen kuwa madaxtooyada fadhiya magaalada Muqdisho kuwa Muqdisho magaalada jooga madaxtooyadana waxa weeye waa meel musuqmaasuq lagu yimiday la iibsaday codkii baarlamaankii cumaha la qabtay marka ma keeni karaan xal aan ahayn inay kuwa gobolada soo boobaan kuwa goboladana marka waxa weeyaan han iska celino kuwii sina boobi lahaa sidii baydhabo loo boobay marka waxa weeyaan walaalkay sida jidka qura looga baxayo waxa weeyaan dad culamo ah oo iimaan qaba oo dawladda u neekin dad culamo ah oo ilaahooga ka baqda dad mustaqafiina oo siyaasadda ku jirin ee dadka u danaynaya in la soo saaro oo tobaneeyo aan ka badnayn oo 4 wanis ama 4 bad lagu soo xulin ee ummadda ka naxaya oo la yiraahdo bal ininku waxaan la isku soo haysto ka soo taliya waxay soo taliyaanahay ummaddu ku go'an tahay in lama intay ka hadlayaan qaran midaysan oo goboladiisu shaqeeyaan oo dawlad goboleedku shaqeyso laakiin se dawlad goboleedku hayna mijaxaabinayn awoodda iyo laxaadka iyo qarannimada iyo sharafnimada dawladda dhexe haddii kuwa la helo oo kuwa nahay dhageystaan dadka Soomaaliyeedna kuwa ay taabacaan waxaan leeyahay xalku ma foga laakiin se yaa kuwan dawlad goboleedada iyo kuwan dawladda dhexe sheeganaya yaa ka soo dhaadhicin kara dantii Soomaaliyeed iyo diintii islaamnimo inay taa ku jirto walaal waayahay ugu dambeyn marka maxaad ku talinaysaa waxa weeyaan waa bil Ramadaan baa la joogaa ilaahay horta laga baqdo nabigiisa lagu salliyo dadka masaakiinta balanbalsan ee 30 sanadood oo dhow darayeysnaa ha laga naxo weeyaan kuwa koow talabaadna waxa weeye qolada waxa weeyaan horta dawladda dhexe waa inay ka tanaasushaa inay gobol kastaba inay doonayso qof inay dhigato hadhowto marka doorasho hadii la helo 2020 ama 2020 iyo ku qaar hay dhigatay oo u adeega oo musuqmaasuqi wada inay halka u fadhiistaan ha ka tanaasusho ha ka hadho qolooyinka dawlad goboleedaduna ilaahooga ha ka baqdaan nabigana ha ku salliyaan ha ka naxaan ummadda Soomaaliyeed ha yiraahdaan war dad culimo ah iyo musaqafiina oo dadka u naxaya aynu meesha keeno oo iyagu ha soo taliyaan iyaga dhexdhexaad kuraasina aan rabin haddii taa la yeelo waxaan yaabaa halkeenu inuu runtii aad u sahlan yahay ta ugu dambaysa walaal waxa weeye waa bil Ramadaan baan ku idhi
maxamed cabdulla xasan baa 100 sanadood horteed ka hadlay arrintan uu leeyahay hadday tuhun baa soo kala dhex gala raggu markay kala tagayaan waa 100 sanadood horteed buu yiri cabdullaahi suldaan timacadde oo ka hadlayay hargeysa ka hadlayay waa ka yiri hadday kuwan dawladda sheeganaya hadday nahor galaan naafac iyo midhamo weyneen sharafna maanaan weyneen waxaan waa dad Soomaalidu baa ka hadlay horteed maaha wax adag oo aan la samayn karin haddii iimaan la yeesho madaxtooyadu iimaan hayaan leh Professor Cabdi Ismaaciil Samater ayuu ahaa dhageystayaal oo u waramayo goobjoog. Professor aad baad u mahadsantahay. Allah ku ilaahiyo